Somaliland walaalkeena waxaa lahaa xoriyadiisa iyaga maanta gacantooda ku jirto waxaan idinka codsanaynaa kun iyo kow jeer inaad maanta xoriyadda walaalkeena aad dib inagu soo celisaan waxaanu nahay dhammaanteena dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina biyo waa la soo deyn doonaa maanta rajadeena waxaa rumayn kara ilaahay ka sukow madaxweynaha dalka Somaliland Muuse Biixi waxaan kaa codsanaynaa hadduu video ku soo gaaro waxaan nahay dadkooda ka maqan yahay aanan maanta awood u lahayn inay soo deystaan xag awood ama xag maal aanan haysanin laakiinse aan haysano cod aan ku soo gudbisan karno codsigeena iyo rabitaankeena maantana waxaa codsanaynaa anagoo ah Bilaal Bulshaawi familkiisa iyo saaxiibadiisa in xoriyadiisa dib lagu soo celiyo anigoo ah Armaan Maxamed Cabdiraxmaan أنا بلاد بشاوي ساعدتيس أنا أوبرك مجاجيلو يقرسل أيانتنا أوسين وحكى لما هي وحياته ومخلناها قد كان سوشيال ميديا ساعتها على صعوبة الواقع بشاوي حريها وحنا هالكان ما تعصوا وتوصلنا هذا أقول لنا مدحناها مسبيحي يبود بركة السوماليلاند ولا لهنا إنه خدع إنه دينته وحين كأصلنا إن صاحب كنا من ولا كنا أتريد ستين مسلسل ليش معك أصلنا أصلنا كبيرة يبيس جايو أكسي بليس بريء كبيشاري هو ينعمل لهم سكرسي أقولني نكسوكش. وحنا هالكان ما تعصوا وتكسرنا عم بقول بنينا مدحوينها مسبيحي. بديس وكبرينا وعطسي وبلال ولدي. waxaanu nahay dhammaanteena dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina biyo waa la soo deyn doonaa السلطان محمود جمعالي بلال بولشاوي hooyadiis waxaan idinka codsanayaa dawladda barakeyne ee Somaliland waxaan ka codsanayaa in cunugaas ii soo deeyo aniga garabkayga u ahay waxaana ku dhalay burburka waqtiga burburka waana yaraankaygi waxaan ka codsanayaa inaad wiilkaas Bilaal Bulshaawi la yiraahdo magaciisa caadigaana ah Cabduqaadir Cali Maxamuud إذا كعب صنايا مدن مدحويني وعن كعب صنايا أدقو مصبيحي عن كعب صنايا إن شاء الله تعالى إن ديسود ديسو ويلكاس وأنا أقول عد كالي أو ما أنت أضاء به جوغئه وعن كعربا إن ديسود ديسو أقول نما نكسوكش أقول نما نكسوكش kaa codsanayaa inaad mudane aad soo deyso Muuse Biixi madaxweynaha Muuse Biixi adaan kaa codsaday waa kaa codsada cusriye iga tahay waa ku bariyaa kunya kow joor ee waxaan kaa rabaa cunugaas inaad soo deyso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad ila jeclaato insha Allah taala waxaana kaa codsaa in si degdega aad igu soo deyso waxaan kaa rabaa cunugaas xorriyadiisa inaad dib igu soo celiso. السلام عليكم مجاعي واسمان علي محمود وبلال بولشاوي walaashiis waxaa ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi inuu noo soo daayo walaalkay Bilaal inuu dib noogu soo daayo xorriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problem ku jirna hooyadana awoonimo noogu soo korisay ilaa hadda hooyadeen way iska xanuunsan tahay murugtiisa la jiiftaa
annagana sidoo kale walaalkeen waa yaraankeena mana ka maarano boliis waa ku baryeynaa waa codsi waa bilaal walaalihiisa waxaan ku leenahay madaxweyne mudane waa ku baryeynaa noo soo daa xorriyaddiisa dib noo soo sii waanu ku baryeynaa codsiga naga tahay haddaanaanay familka bilaal bulshaabi codsiga naga tahay boliis waa ku baryeynaa ma awoodna qiiradeena maanta waxaa ku saabsanaa weligay kaamir ma soo hor istaagin maxaa igu qasbay walaalkayga oo iga maqan maanta xorriyaddiisa ma haysto taleefonaa kala hadlan xitee walba xitee ma haysano mana la hadli kariyo xaaladdu ku suganya ma sheegi karno waa ku baryeynaa madaxweyne meeshan waxaa usoo fadhiisanay inaan codsi u dalbano ama codsi aan u dirsano jamhuuriyadda somalilan khaasatan madaxweynaha waxaa maanta meeshaan usoo fadhiisanay aan la murugaysannahay aan la tiiraansannahay anigoonan awood u lahayn inaan dib u soo celino awoodda saaxiibkeen marna walaalkeen marna garabkeen oo naga maqan balse aan maanta awood aan u leenahay inaan codsi u dirsano dowladda barakaysan ee somalilan maanta waxaa meeshan u soo fadhiisanay walaalaheen somalilan oo walaalkeena maxaa lahaa xorriyaddiisa iyaga maanta gacantooda ku jirto waxaa idinka codsanaynaa 1,000 jeer inaad maanta xorriyadda walaalkeena aad dib inagu soo celisaan waxaanu nahay dhammaanteena dad rajo ku nool ah oo si wax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo dayn doonaa maanta rajadeena waxaa rumayn kara ilaahay ka sukow madaxweynaha dalka somalilan muuse biixi waxaan kaa codsanaynaa hadduu video ku soo gaaro waxaan nahay dad dadkooda ka maqan yahay aanan maanta awood u lahayn inay soo daystaan xag awood ama xag maal aanan haysanin laakiinse aan haysano cod aan ku soo gudbisan karno codsigeena iyo rabitaankeena maantana waxaa codsanaynaa annagoo ah bilaal bulshaawi faamilkiisa iyo saaxiibadiisa in xorriyaddiisa dibna lagu soo celiyo anigoo ah armaan maxamed cabdiraxmaan ahna bilaal bulshaawi saaxiibkiisa aadna ugu baratay majaajilo iyo qorsal ayaantana aaweysiin wax kale maahan waxaa ayaanta ugu maqannahay qadka ama social mediaha saataa la socotaan walaalkeena bilaal bulshaawi uu xiran yahay waxaana halkan maanta codsi ugu tursanayaa amba ugu dhiibanaynaa madaxweynaha muuse biixi jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan ee walaalaheena ah ee nagu luqadda ah ee nagu diinta ah waxayna ka codsanayaa in saaxiibkeena marna walaalkeena aad xorriyaddiisa dib noo siisaan meeshaan waxaan ku codsanayaa madaxweynaha muuse biixi waxaan ku codsanayaa walaalkay bilaal inuu ii soo daayo codsi boliis firee iyo bulshaawi hooyadana awood lahood soo korisay agoonnimaana ku soo korsha waxaana halkan maanta codsi ugu dirsanayaa amba ugu dhiibanaynaa madaxweynaha muuse biixi boliis waa ku baryeynaa waa codsi waa bilaal walaalihiisa waxaanu nahay dhammaanteena dad rajo ku nool ah oo si wax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo dayn doonaa anigoo ah suldaane maxamuud jimcaale bilaal bulshaawi hooyadiis waxaan idinka codsanayaa dowladda barakeyne ee somalilan waxaan ka codsanayaa inay cunugaas ii soo deeyo aniga garabkaygu ahaay waxaana ku dhala burburka waqtiga burburka waana yaraankaygi waxaan kaa codsanaa inaad wiilkaas bilaal bulshaawi la yidhaah magaciisa caadigaana ah cabduqaadir cali maxamuud aan idinka codsanayaa mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa adigoo ah muuse biixi aan kaa codsanayaa insha allahu tacaalaa inaad ii soo dayso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabbihi jooga ah waxaan kaa rabaa inaad ii soo dayso agoonnimaana ku soo korsha waxaan kaa codsanayaa inaad mudane aad ii soo dayso
muuse biixi madaxweynaha muuse biixi adaan kaa codsaday waa kaa codsada codsigay iga tahay waana ku baryaa kunya kow joor ee waxaan kaa rabaa cunugaas inaad ii soo dayso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad iila jeclaato insha allahu tacaala waxaana kaa codsaa in si degdega aad igu soo dayso waxaan kaa rabaa cunugaas xurriyadiisa inaad dib iigu soo celiso. السلام عليكم مجيء واسمان علي محمود وبلا بلشاوي ولاجيس waxaa ka codsanaya madaxweynaha Muuse Biixi inuu noo soo daayo walaalkay Bilaal inuu dib noogu soo daayo xurriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problem ku jirna hooyadana wanima noogu soo korisay ilaa hadda hooyadeen way iska xanuunsan tahay murugtiisa la jiiftaa anagana sidoo kale walaalkeen waa yaraankeena mana ka maarano gudihiisa waa ku baryeynaa waa codsi waa Bilaal walaalihiisa waxaan ku leenahay madaxweyne mudane waa ku baryeynaa noo soo daa xurriyadiisa dib noo soo sii waana ku baryeynaa codsiga naga tahay haddaanaan fimirka Bilaal Bulshaawi codsiga naga tahay gudihiisa waa ku baryeynaa ma awoodna qiiradeena maanta waxaa ku saabsanaa weligay kaamir ma soo hor istaagin maxaa igu qasbay walaalkayga oo iga maqan maanta xorriyadiisa ma haysto taleefona kala hadalna xitaa walba xitaa ma haysano mana la hadli karo xaaladdu ku sugan yahay ma sheegi karno waa ku baryeynaa madaxweyne meesha waxaa usoo fadhiisanay inaan codsi u dalbano ama codsi aan u dirsano jamhuuriyadda Somalilan khaasatan madaxweynaha waxaa maanta meeshaan usoo fadhiisanay aan la murugaysannahay aan la tiiraansannahay anigoonan awood u lahayn inaan dib u soo celino awoodda saaxiibkeen marna walaalkeen marna garabkeen oo naga maqan balse aan maanta awood aan u leenahay inaan codsi u dirsano dowladda barakaysan ee Somalilan maanta waxaa meeshan usoo fadhiisanay walaalaheen Somalilan oo walaalkeena maxaa lahaa xorriyadiisa iyaga maanta gacantooda ku jirto waxaan idinka codsanaynaa 1001 jeer inaad maanta xorriyadda walaalkeena aad dib inagu soo celisaan waxaanu nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo dayn doonaa maanta rajadeena waxaa rumayn kara ilaahay ka sukow madaxweynaha dalka Somalilan Muuse Biixi waxaan kaa codsanaynaa hadduu video ku soo gaaro waxaan nahay dadkooda ka maqan yahay aanan maanta awood u lahayn inay soo daystaan xag awood ama xag maal aanan haysanin laakiinse aan haysano cod aan ku soo gudbisan karno codsigeena iyo rabitaankeena maantana waxaa codsanaynaa anagoo ah Bilaal Bulshaawi faamilkiisa iyo saaxiibadiisa in xorriyadiisa dibna lagu soo celiyo anigoo ah Armaan Maxamed Cabdiraxmaan ahna Bilaal Bulshaawi saaxiibkiisa aan ugu baratay mataajiro iyo qoysal ayaantana aaweysiin wax kale maahan waxaa ayaanta ugu maqannahay qadka ama social mediaha saataala socotaan walaalkeena Bilaal Bulshaawi xaran yahay waxaana halkan maanta codsi ugu dirsanayaa ama ugu dhiibanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi jamhuuriyadda barakaysan ee Somalilan ee walaalaheena ah ee nagu luqadda ah ee nagu diinta ah waxaan ka codsanaynaa in saaxiibkeena marna walaalkeena aad xorriyadiisa dib noo siisaan meeshaan waxaan ku codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi waxaan ku codsanayaa walaalkay Bilaal inuu ii soo daayo codsi biliis firii iyo Bulshaawi hooyadana awood lahayd ku soo korisay agoonnimana ku soo korshay waxaana halkan maanta codsi ugu dirsanayaa amba ugu dhiibanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi gudihiisa waa ku baryeynaa waa codsi waa Bilaal walaalihiisa waxaanu nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo dayn doonaa Suldaan Maxamed Jimcaale Bilaal Bulshaawi hooyadiis waxaan idinka codsanayaa
dowladda barakeyne ee Somaliland waxaan ka codsanayaa in cunugaas la soo deeyo aniga garabkayga u ahay waxaana ku dhalay burburka waqtiga burburka waana yaraankaygi waxaan ka codsanayaa inaad wiilkaas Bilaal Bulshaawi la yiraahdo magaciisa caadigaana ah Cabduqaadir Cali Maxamuud idinka codsanayaa mudana madaxweyne waxaan ka codsanayaa adigoo ah Musabiixi aan ka codsanayaa insha Allah tacaala inaad ii soo dayso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabihi jooga waxaan ka rabaa inaad ii soo dayso agoonnimaana ku soo korshay agoonnimaana ku soo korshay waxaan ka codsanayaa inaad mudane aad ii soo dayso Musabiixi madaxweynaha Musabiixi adaan ka codsaday waa ka codsada codsiga iga tahay waa ku bariyaa kunya kowjoor waxaan ka rabaa cunugaas inaad ii soo dayso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad ila jeclaato insha Allah tacaala waxaana ka codsaa in si degdeg aad ii soo dayso waxaan ka rabaa cunugaas xurriyadiisa inaad dib iigu soo celiso. Assalaamu calaykum magacay waa Ismaan Cali Maxamuud waa Bilaal Bulshaawi walaashiis waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Musabiixi inuu noo soo daayo walaalkay Bilaal inuu dib noogu soo daayo xurriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problema ku jirna hooyadana awoonima noogu soo korisay ilaa hadda hooyadeen way iska xanuunsan tahay murugtiisa Musabiixi inuu noo soo daayo walaalkay Bilaal inuu dib noogu soo daayo xurriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problema